السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وكيسان يوتيوب كاي داونيسين وكاشو 7 kusoo dhawaad youtube channelkan haddii ku cusubtahay subscribe like iyo share noo dheh asxaabtaas si gaarsii aad iyo aad u mahadsan tahay. maanta mawduuceen wax weyn maahan. waxaan xoogaa aan isla fiirinaynaa wax maalmahanay social media dhex socdo. ayaantan social media nin walba waxa haddii aad u badan tahay wax dhex socdo waad aragtaan in oo maxaa la dhihi jira jawiyada maalmaha isbedeleen sidii heerkulkan Yurub oo kor u sii kacay ama haddii kaloo alla ku idmay biyahan biraan kusoo baxay fatahaadaan dhacaya oo sidii ka jirta dhulkan carabta. haddii aan taasayta aan gudagalna mid hore sawirkan ayaa la arag waa Spain, France, England iyo Portuguese. sawirahanayta uma caadeysan yani dhulkan Yurubta in ay arrimo nooca camal ka dhacaan heerkulka inuu zaid u kaco meelaha in lagu tilmaami karo 45 ilaa iyo 40 iyo adiga qiyaas 40 iyo ka koro meelaha 45 ka marka tagaalada qaarna waa ka badiyaa taasoo ku tusinaysa in Yurub ay isu bedeshay jixiim holcays. dhanka kale haddii u soo laabano dhulka carabta saa ogtihiin dhulka carabta waxay ahayd meel oo kuleyl heerkiisa sarwata meelaha markii la gaaro bishii 6aad bishii 7aad iyo bishii 8aad waxaa lagu ogaansan jiray in ay heerkulka zaid tahay sidii iminka Yurub ay tahay. laakiin hadda waxaan arkaynaa in ay Yurubti ay kuleyl noqotay carabtina isu bedeshay meel qabow. ma dhihi karna waa halaag iyo wax soo socday ay ka dhigan tahay ilaa laakiin marka hore xadiidkan ila fiiri xadiidkan hadda ka hor kulli meelna ku aragta laga yaabo waa xadiis sax ah nabiga dhahay aakhir zamaanka marka la gaaro waxaa lagu ogaan doonaa calaamadaha ka mid ah aakhir zamaanka marka la gaaro waxaa lagu arki karaa in dhulkanayta carabta ay laga arka fatahaada ama hubiyaal inay kasoo burqadaan dhulka oo taas oo isu bedeshay carabtii oo saxraa ahayd dhul cagaar oo hawd horaa nabiga isu dhahay. marka aniga ma dhihi karaa haddanay waqti xadirkan la joogo xadiidkii wuu kaamiloobay ama ayad ka mid kuwa nabiga uu sheegay ayaa soo baxda ma dhihi karna. laakiin say haddanay ay culumta badan oo islaamka iyo kii kale ay sheegeen ama dad oo horey oo odayaal ah sida ay sheegeen wax horey u dhici jiray maahan waa wax dadku cusub oo qariib ah. dhanka kale maalmahanay waa aragteen calaamado fara badan oo la sheegay inuu adduunka dhamaadka taagan yahay ayaa soo baxaya. مثلا wax ka socda social media waa aragtaan dumarkeen maalmaha inay zaid isu qaawiyaan taasna hore nabiga uu sheegay. nabiga wuxuu yiri caariyaatun kaasiyaatun waxa soo bixi doona dumar oo inay dhar wataan loo isu malaynay laakiin aan dhar wadin noo qaawan. waa aragtaan maalmahan TikTok wax ka socda taan hore noolidii inay soo socoto imaan doonto nolol sheegay. waxyaabo fara badan oo hadda la sheegi karin oo wax un dhiman oo hadda wax dhiman oo weli hadda ma dhicina dhihi karno waa wax iskiir. calaamadaha yaryar waa naadir yani waa la wal arkay dhamaantood haddii ay wax dhiman yihiin wax yar unbaa ka dhimin. kulley waxaan umaleynaa waqtigii gabagabada unbaan joognaa calaamadihii weynaan bis unbaa noo dhimin. nin walbo meeshuu ilaahi lagu carar lahay taaganahay marka akhyaaray nin walba ilaahi oo laabtay indhii lahay intaas waana ay iga tahay. teeda kale hubi waxaa jira oo dhulkan carabta Ciraaq inay tahay umaleynaa hubi imaada jira oo Yurub taasay kor ka imaada. hubigaasay tan waxaa la sheegay inaas guri oo hubi furaat hubiga inaas guri oo biyihiisa ay zaid u yaraadeen la sheegaa. marka taasna naftirkeeda waxaan umaleynaa had kor nabiga waa ummadda waa ka wacyigeli ama waa u sheegay inay calaamadaha soo socda ay ka mid tahay. marka adigaadan daawanahay calaamad maanta ku dhiman oo yar maanta ma lahan. marka ilaahay uu noqon qorraxda soo baxda noo dhiman intaasna
waani wacdi ay tahay qaraabada in salaama. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciao.